الدولة الخوارزمية والدولة دي حكومي جرتي أفغانستان، أوزبكستان، تركمانستان، كازاخستان، طاجكستان، باكستان، هي قيب إيران كميدة. انتاسو يسكو هيستي الدولة الخوارزمية ومسلمة. عاصمة ديدنا مقالة أورجندا الله يراهده، أورجندا تركمانستان ميكو تالي. عاصمة أي هالكا واحد. لبدا ودن waxa ka dhaxeeyay xusnul jawaar si nabadgelyo in loo wada deganaado. Genghis Khan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dawladiisa dhisideedii ayuu mashquul ku ahaa. China iyo Korea iyo indha yaroo dhan inuu ka takhaluso. laakiin waqtiyada kamida baa waxa dhacay waxaan laba filaynin. isna marmarsiyo u noqday. waxa dhacay dawladda al-Khawaarizmiyya magaalo Otrar la yiraahdo oo bariga ku taala xaga China u dhow. ninkii xaakimka haystay labada dawladood maadaama heshiiskani uu jiray tijaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarka mari jiray. xaakimkaas wuxuu qabtay tijaar Mongolianisa, tijaar Mogolkii kamida ama Tatarkii kamida. dabeetana tijaartii oo dhan bulaay waa ballan furiyo sida u taala. Genghis Khan waraaq buu soo diray oo boqortooyada Khawaarizm Maxamed ibn al-Khawaarizm shaah ninkii la oran jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo la nimankii laayay tijaarta gacanta halayga soo galiyo. boqorkan qaybta muslimka haystaana wuxuu yidhi maya annaga maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyaga lagu maxkamadaynaya. waa sida taariikhyahanada qaar sheegaan. dabeetana umay cuntamin Genghis Khan wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi hala soo dhiibo. boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa. ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana hala dilo. awal waxaa la isku haystay waxaa la isku haystay rag tujaaroo la laayay oo halay keeno iyo halka lagu xukumaa la isku hayay wati Afghanistan oo kale. dabeetana waxaa la yidhi ma kiina wuu dilay. Genghis Khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay marka dagaal waa iclaan xarb. labadii dawladood dagaal baa loo diyaar garoobay. Genghis Khan ciidan aad u tiro badan buu soo kaxaystay. محمد ابن خوارزم شاه ninkan la yiraahdo dawladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday. magaaladii Arjanda wuu ka yimi isna barigu soo kacay. laba ciidan oo aad u tiro badan baa la iskala hor yimi. waxa la isugu yimi webiga Siixoon taariikhyahanada muslimku ay yiraahdaan Sardaria qolada kalena ay ku tilmaamto. waa dawladdan Kazakhstan la yiraahdo dhexmara. goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen. dagaal adag baa dhex maray. muslimiinta oo qura 20,000 baa ka geeriyooday baa la yiraahdaa dagaalka kan. 20,000 oo muslim ayaa lagu waayay. Tatarka ama Mongolianiskana waxaa la yiraahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay. 4 maalmood baa la isjafayay oo dagaalkani socday. dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yara gurtay. labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay, dhaawacii baa ku tiro batay, dib baa loo kala gurtay. waqtigii dib loo kala yara baxay ayuu boqorkii Maxamed ibn Khawaarizm Shah wuxuu u fakeray fikrad qaldan, taktiik qaldan, raga badhna waxay yidhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro. dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto ilaashado. isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimadii inay ku noqdaan. caasimadii markaa galbeed waqooyi fog bay ka xigtaa. meesha la isku dilaya waa ka durgsantay. ciidankiisii dib uu ka haystay. intani waa intii awal bay isdhibtay calanka cadi dhiibatay. xoolihii baa loo keenay. magaalada wixii dhaqaale yaalayna waa kan baa la yidhi.
markuu dhaqaalihii isku hubiyey ayuu ciidankiisii wuxuu yidhi waa fasaxantiin haddaba waa fasaxantiintu waa yaan waxba laga sii daynin bukhaara siday u dhammayd dhiiggaa dhegta loo daray gawraca magaaladii dhammayd waa la laayey hantida intuu isagu qaatay mooyaane askartii baaqigii baa lagu sii daayey waa la waday reer samarqando markaa naftii baa isugu timi hubkao dhan markii uu ka dhigay ayuu magaalada soo galay dabeetana wuxuu amray in raggooda iyo dumarkooda iyo carruurtooda kuwan waxba inaan laga sii dayna la laayo magaalada tan wixii xoolaana la qaado dadkana in la cadaabo ilaa iyo xooluhu halkay ku qarsooyin inta ay ka sheegayaan dumarka iyo carruurta wixii in la addoonsadoo la kaxaysta aanu cuntaminay ama weyn ama xanuunsanaya ama kuwaana ma wadwadi karnay hala dilo jaamica magaalada masaajidka ugu weyn ee magaalada ku yaallana hala gubo jinkis khan magaalooyinka kan iyo layntooda wakhti badan ayay iga luminaysa 20,000 ee ciidankiisa uu raggii ugu khatarsanaaya ayuu soo saaray dabeetana wuxuu yidhi dowladda tani jabtay ee waxaan rabaa moxamed ibnu khawaarzim shaah madaxiisa in lay keeno boqorkii ha laga daba tago wax kaloo ah eegtaan yay jirin socda boqorkii baan idiin diray samada hadduu qabsadaha ka hadhina waa istihzaa bilmalaayiin almuslima u fiirso waa 20,000 oo askari dowladda dhan oo 2-3 magaalo laga haysto intii kale dhexda ayuu u diraya waa caasimadii waddanka meeshuu ku socdaa 20,000 baanu u diray marka kan soo qabta buu yidhi madaxweynihii waddanka wakhti yar ma intaan la joogin waaba tataarkii oo xiimaya muslimkii oo dhan soo dhex jeexay organda maraya moxamed khawaarzam shaah laa yalwi calaa shayin fii nafarin min khaasati cidna isagoo aan dib u eegin waxoogaa yaro kooxdiisii u kaxaystay madaxweynihii waa rooray wuxuu rooraba magaalada naysaabuur la yidhaahdo oo koonfur ka xigta ayuu yimi kooxdanina waa ka daba timi waxba may dilin waxba may boobin waxba toos bay u socdaan muslim tiro badan bay dhex marayaan muslimka laftiisiina waxay sidhaahdeen waar baladan haddii ilaahay idinka badbaadiyo baa isku taataabinina iyana haydin dhaafaan iyana cidna ma taabtaan muhiimadooday u socdaan dadkii iyo askartii iyo wixii kale meel kaga soo horbaxaana nimankana aan idinba taabanin idana ha taabanina la yidhaho jidkaa loo baneeyey jidka markii si fudud loogu baneeyey odaygii bay daba jabacsadeen 20,000 ee askar oo xiimaya naysaabuur bay joogaan markuu warkaa maqlay madaxweynihii waxoogaagiisii intuu urursaday ayuu maazandaraan magaalo la yidhaahdo taw ugu siiyey waa ka baxay tiina waa eeraan oo magaalo ku taalla naysaabuur markayse soo taageen baa la yidhi madaxweynihii waa baxay kumay weecan magaaladii odaygii bay ka daba tageen magaaladii iyana waa iska dhaafeen madaxweynihii sidii u ordayey wuxuu soo galay magaalo rayi la yidhaaho waa dhanka bari buu markaa uga kacay markii hore arjanda buu ka yimi naysaabuur oo koonfuruu yimi bari buu u jeexay haddana wuxuu qabtay markaa magaalo rayi la yidhaahdo ray markuu yimi ayaa loo sheegay nimankii inaanay magaalooyinkiiba ku hakan cidna laynin ay daba socdaan waa dhaafay iyana hamadaan buu usii kacay waa magaalo kale oo eeraan ka mida iyana nimankii tataar waa yimaadeen waxaa la yidhi duqii hamadaan buu ugu tawsiiyey waa ka daba shubeen magaaladii iyana kumay weecanin waxa ay magaalo marayaan ciidamo muslimiina jooga dad muslimiina jooga waa ummad muslima waa madaxweynihii ninkan la eryaya laakiin baqihii dadkan galay iyo warkii labadaa magaalo dadka siduu u soo gaadhay cidiba xaggan faraha u fiiqi mayso waa loo baneeyey jidka iyana waa ka daba tageen hamadaan isagoo jooga ayuu maqlay nimankii haddana inay weli soo socdaan rayi buu ka soo baxay hamadaan buu joogaa maazandaraantu markii hore ka yimi ayuu dib ugu kala fireeyey maazandaraan buu dib ugu noqda
iyana waa ka soo daba laabeen wuxuu maqlay nimankii haddana in yar bay kuu soo jiraan waa carara madaxweyne waddankiisii weli hide and seek cayaaraya maxaa la yidhahdaa baashan dhuumashada iyo soo helitaanka waa baxsada baxsadkii wuxuu qabtay gobolkan la yidhaahdo tabristan waa gobolka ku xiga ghazwiin baxru ghazwiin baddan yar ee ghazwiin la yidhaahdo gobolka ku xiga muslimiintu degi jireen baa tabristan la odhan jiray gobolkaasuu ta ugu siiyey dabeetana waa ka soo daba baxeen wuxuu gaadhay badda markuu tegey ayuu doon fuulay dabeetana gasiirad yaroo badda barhtankeeda ku taalla ayuu degey siday u soo eryayeen bay xeebtiisa soo taageen nasiib darro dee wuu ka baxsaday iyo nasiib wanaag miday tay garan maayo boqorkii lama hayo meeshii markayse soo taageen dee tani webi maahe waa bad markaa dib bay uga laabteen boqorkii meeshii waa ku busaaradsaday waa ku cidlaystay waa ku fool xumaaday waa baahaday waa ku baktiyey waa dhintay addawla alkhawarzimiya ninkii ka talin jiray kafan baa loo waayey furaashkuu ku seexan jiraa lagu aasa addawla alkhawarzimiya ee dhanna jayna dacalkeeda joogta dhanna ciraaq dacalkeeda joogta dhanna baxru ghazwiin joogta dhanna nahru sind ayay joogtaa bakistan afghanistan istaan oo dhan nahru sind webiga la yidhahdee mara gobolkan sindi la yidhahdee ku yaalla bakistan intaa waddanka leeg ninkii ka talinayey kafan baa loo waayey furaashku ku jiifaa lagu aas aynamaa takunu yudrikkum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastoo aad tegtidba geeriyi way ku haleelaysaa